بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga. Ha ilaawina subscribe iyo like iyo share. Waa mahadsantihiin. Sida noo xigta Machadka Fail Family Brain and Mind ayay soo saareen qoraalo ay ku sheegeen in ay cusbada si xad dhaafka ah loo cunaayo inay maskaxda saameyn weyn ku yeelanayso. cusbada badan ma ahan mid caafimaad leh sababtoo ah waxay dhaawici kartaa ama kolba gaarsiin kartaa wadnaha. waxay kaloo kicisaa dhiig karka. haddii la iska khiyaasin cusbada waxay noqonaysaa mid halisteeda leh oo khatar ku ah noloshaada. cilmi baarayaasha waxay cusbo badan ay cunto uga dhigeen dooliga ama jiirka. markay isbeddelkan lagu sameeyey jiirku waxay hoosta ka xariiqeen inuu jiirka dhinaca dhimirkiisa hoos u dhaceen. tusaale ahaan markii jiirku ay cusbo siiyeen ayay dhex dhigeen meel oo ay ugu talagaleen inay tijaabo ku sameeyaan, laakiin waxay arkeen in dooligu culays soo food saartay markii lagu dayo in meeshii loo rabo inuu aado. waxay kaloo arkeen markii la taabto jiirku uusan kicin oo waxba dareen ah jirkiisa yeelanin oo dareenkiisa hoos u dhaceen. sababtuna waxay tahay cusbada badan dhiigga ka yaraysay oo daciif ka dhigtay. sidoo kale baarayaashu waxay kaloo ogaadeen in jiirka dhiiggiisa ku bateen maadada interleukin 17 ay tahay maadda hulci karta ayna tahay kiimika kale ka dhex shaqayn karta, waxayna sababaysaa isbeddelaad ku keento dhinaca kiimikada dhiigga maskaxda. 3 bilood kadib jiirkii oo cusbada la siiyey wuu waashay sida ay daraasada laga baahiyey wargeyska Nature Neuroscience. sidaas darteeda baarayaashu waxay u sheegeen in haddii la cuno cusbo badan ay saameynayso maskaxda. aada u mahadsantihiin daawadayaal. ha ilaawina subscribe iyo like iyo share. waa mahadsantihiin.